maantooy bishu tahay maantooy Ramadaan kow tahay waxaan furaynaa koobkii Ramadaan ee Micaadi Stadium waxaan aad ugu mahadcelinayaa Astaan Sports iyo gudoomiyaha Khadar Jilaal Jaamac oo runtii isna halkan aan ku soo dhaweynayno leenahay aad iyo aad baad mahadsantiin waxa kale oo u mahadcelinaynaa mulkiilaha garoonka Micaadi Stadium Cabdiraxiin Micaad oo runtii hirgeliyaha garoonkan xaafadda Falluuja oo runtii tabac badan galiyay runtii isna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa koobkani waxa uu ka kooban yahay waa koobkii dhalinyarada waxa uu ka kooban yahay 12 kooxood insha Allah biidnillaahi kariim tartankan garoonka Micaad ka socda ee taabagelisay shirkadda Astaan runtii tartankan waxa ka qayb galay 12 kooxood ujeedada tartankan waxa weeyaan waa isdhexgalka dhalinyarada iyadoo loogu fogaanayo aafooyinka dhalinyarada jira tartankan waa mid madadaalo ah garoonka mulkiilaha garoonka Cabdiraxiin Micaad aad baan ugu mahadcelinayaa sidoo kale maamulka garoonka ka shaqeeya sidoo kale isagana waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Khadar Jilaal oo runtii isaguna mashiin aad ugu dhex jira bahda sportiska oo isagu mar walba meel walba taagan sidoo dhalinyarta u dhiirigeliyo inta marka laga yimaado anagu ujeedadan tartankan aanu maalgelinay runtii aanu garab taagan wax kala maaha waa inaan dhalinyarada iyo bahda sportiskaba aanu garab istaagno haddaad Astaan aragtaan waxa weeyaan sportiska qayb laxaad leh ayay ka tahay oo runtii meel walba sportiska degmooyinka caasimadda Hargeysa ka socda qayb laxaad leh ayaanu ka qaadanay tartankan bisha barakeysan ee Ramadaan dhammaan aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka garoonka waxaan ku soo dhaweyn doonaa gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Khadar Jilaal بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد إلهي بقى مهد لي الحمد لله رب العالمين waxaan marka hore salaamayaa mulkiilaha garoon kan aadka ugu qurux badan leh ee population-ka amba dadka ugu badan ay degan yihiin xaafadda Falluuja ilaa Koobeysta Kamey ilaa iyo xaafadahaas oo dhan garoonka ka dhaxeeya aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya saaxiibkay Cabdiraxiin oo galiyay yani jundi badan iyo maalba ka xiriir ahaan anagu waa soo dhaweynaa waana garab taaganahay shirkadda Astaan oo shirkadda dhalinyarada sportiga mar walba garab taagan oo sanad walba iyo saacad walbana iyagu garab taagan koobkanna qayb ka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa uguna soo dhaweynayaa waana markii koowaad ma waa markii boqolaad ama markii kunaad mar kasta inay dhalinyarada garab istaagaan astaantooda ku subtan Astaan inay dhalinyarada iyo sportiga garab istaagaan alxamdulillahi rabbil caalamiin taasoo bay la mid tahay mar walba iyo saacad walbana annagu ka xiriir ahaan meel kasta kubadda cagtu ka socoto inaanu garab istaagno oo booqano ambaanu goobjoog ka noqono waa inoo muhiim alxamdulillahi rabbil caalamiin tana taasoo la mid tahay maaha markii koowaad xaafadda Falluujo ciyaaro furno alxamdulillah waa markii labaad sanadkii labaad waana ku soo noqon doonaa insha Allah xaafadan waa xaafad dhalinyaradeedu aad u badan tahay xaafad u baahan in dhalinyaradeeda iyo sportigeeda la garab istaago waana garab istaagi doonaa insha Allah ka xiriir ahaan waana soo dhaweynayaa arrinkaas garoonkan iyo Astaan iyo koobka Ramadaanba waa inoo furan yahay alxamdulillah rabbil caalamiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh